السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. beeraleyda Soomaaliyeed waa idin salaamay. Waxaan kasoo salaamayaa maanta Hargeysa, Hamdan Hotel waa idin kasoo salaamayaa. Waxaan ugu imaaday socdaal yar dhanka Hargeysa, inkastoo shaqadanadu ahayd dhankaas Burco. Niman beeraley ah yaan maaragtay inaan kulanna rabnaa oo maaragtay xagga beeraha ka caawino. Waxaa kaloo insha Allah rajeynaa inaan la kulmo engineer Maxamed oo ah groupka ninka aad u wado groupka beeraleyda Soomaaliyeed, aqoon-yahankeeda waayo araggeeda maaragtay oo maaragtay nin beeraha ku takhasusay cilmi dheer ku leh. insha Allah isagana inaan la kulma rajeynayaa oo maaragtay kulan wada qaadano, wixii cilmi oo ka hadee aan ka qaadan karana ka qaato insha Allah. yaa rajeynayaa beeraha Hargeysa ku teedsan insha Allah inaan maaragtay socdaal ku tagaa rajeynaya maanta iyo berrita hadday suurto gasho, kadibna shaqadii xagga iyo Burco ku laabanayaa. dee waa idin wada salaamaya insha Allah. beeraley badan oo reer Hargeysaawi ah, reer Somaliland insha Allah waa wada kulmi doona Ilaahay hadduu yiraahdo. Allah in wada xifdiya dhammaantiin. waxaan leeyahay maasha Allah, wadan waxa waaye dadkoodii dhisatay. dee horumarka halkaas ha laga wado, dhanka beerahan ayaa laga seexan. insha Allah xoolihiina dalka ma joogaan sida la ii sheegay abaarihii daraadeed wadda dalka ka dhacay. insha Allah qof walba ha isku dayo maaragtay inuu wax beerto, xagga beeraha xagga horumarka loo dhaqaaqo si xoolihii maaragtay dalkii ka baxay loogu soo celiyo. calaf badan ha la abuurto intii awoodiina ah, biyaha roobka ha la qabsado. hadii waxaan idin leeyahay isku tashto insha Allah. saa isku tashateen xagga ammaanka, xagga dhismaha, xagga maaragtay in maaragtay aan dalkiina nuurisaan, sidoo kale adinkana isku daya insha Allah maaragtay aad waxtarkiina dhulka aad ka faa'iidaystaan insha Allah biidnillah. Asalaamu calaykum.